الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسر وهذا جنال كهابي فوق الهابي iyo aniga happy فوق الهابي waxa maanta martino الفنان الكبير أبوان لحميسته موسيشن أبوكر سلو magac laga maskiin maaha marka hore Abuukar wuxuu gala qayb galaya barnaamij heeso iyo sheeko قصة dhacday Abuukar marka hore ku soo dhawow channelka Happy Fooq Happy aad waa ku dhawahay channelka dad badan ayaa ku garanayo muuqaaga nin waxa tahay fanka lagu yaqaano Abuukar marka soo dhawow channelka Happy Fooq Happy daawadashayaashiisa iyo taageerayaashiisana way ku sugayeen marka maanta Ilaahay xamdigiis way ku hor joogan marka hore maxaa leedahay ما شاء الله waxaan leeyahay marka hore ku soo dhawaada channelka Happy Fooq Happy subscribe tii waxaan idinka dhankiin waa iloobina aad iyo aad waxaan mar walba aan u taaganahay happy gareentiina inaad happy gareeno soo dhawaada maantana waxaan idinku tala galnay qaaci welcome والله waxba ka dhacay barnaamijka anigoo Faarax Ali Wehli ayaa daahfuray maantana wuxuu ku saabsan barnaamijkeeni qaaci kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe fanaanul kabiir Abuukar Slow iyo aniga tartameynay maanta soo dhaweeyna way ahayd saaxiibkay Abuukar Slow cayaar maaha nala socda iyo waxba idin dhaafin haddana dhankiisa waay Abuukar ma adkaysiba
wadaban qatayubaxi taniga yaay amdi walaay alifiyo kuje mufkumanika ubax kuside ilbiisaniyo ufaniyo xareed deegaan lahaa qalbi oomaba ku ololaya والله وحبا كدعي أبوكر إسلو الفنان الكبير أبوان لحميسته موسيقيسته ميلا ترتن يفن لو تجين ماله ساوث أفريقيا تجي سعودية تجي كينيا تجي ملاوي تجي تنزانيا تجي موزمبيق تجي يوغندا تجي بروندي تجي إثيوبيا تجي ووضعها كلها أفريقيا ميلو تجين ماله فنو كتجي عيار معها أبوكر إسلو سودو سيهي هذا كير نسنو dadka waxay leeyihiin ninkan waa nin qabiir ah oo Abuukar experience leh oo aqoon leh adduunkaas dacaladiisa tagay waxyaabo kala duwan oo soo arkay marka hore waxa ku weydiinaa Abuukar waxyaabihii kuugu yaabka badnaa inta adduunka joogtay aragtay maxay ahayd Abuukar soo dhawo wallahi wax badan ay ugu yaab badnaay haye midda asleedahay way ka sii qatarsanay waa ka sii yaab badan tahay soo waxay ugu yaab badnayd reero ayaan isbaranay Botswana dalka Botswana anigu joogo waa kow marka qolana Namibian ah ayagana qaxooti ah yaa meesha wada joognay waa gartay marka waa isbaranay waxay ii sameeyeen qado waa gartay aniga xaaskayga haye waa laba nin oo saaxiibo ahayn nin walba ay xaaskiisa waa la isugu yimid haye meesha aan ku wada qadeynay farxadii aan ku wada qaadanay midkii kale wuxuu yiri in Friday soo socota aniga waay haye jimcada soo socota waa gartay haddana waa tagnay haye aniga waxaan yiri markii jimcahan aniga waay haye waa adiga laba jeer la casuumay warigo ku soo aad meeshii aan tagnay marka dhaqanka wuxuu yahay gabadha oo guriga iskale waxay keenaysaa biyaha farxalka haye jilibkii dhulka dhiganaysaa jilbaha gacantaada qabanaysaa ayadaa dhaqaysa gacantaada sida canug yar way dhaqaysaa jukumaani kuwa kaaga ingijinaysaa haddana ta kale lagu dhaqaaya moogta anaga waa naloo dhaqay labada jeer saaxiibtay waxaan dhahay maanta adiga waaye inaad dhaqdid waaye habarteeda ka tahay amaana habashadan u dhaqaaya gacana u dhaqaaya waliba jilibka dhulka ma dhici karto ma ka dhabaa wallahi waa muranay iridka ka baxdaniyo waxaan kaale anoo ka daba qeylanayo waa ay maqleen gabadhii tagtay moogtahay hadal waa diiday waa lagu tafurtay adiga ina xaliso waa aniga inaan xaliyo Soomaa waa soo laabtay markaan soo laabtay dadkii waa taagtaagan waa soo baxayaan war maxaa dhacay guri buuq ka dhacay wax ma ka cunno dhaqankeena saasay taagan wixii raashin ah meeshii saareen waxaan la yaabay marka guriga kaliya ku soo haray sax xaaskii waa tagtay عدي مرتدى dadkii martida waa tageen warniyo taas ay ugu yaabanayd wallahi billahi waana dhaqanka isdiidan marka midda kale waa arrin la yaab leh wallahi dhaqamada isdiidan way kala duwan